Suldaan Maxamed Suldaan Axmed Suldaan Cabdiraxmaan Suldaan Deriye oo ka mid ah salaadiinta dhaqanka ee Somaliland oo maanta saxaafadda kula hadlay magaalada Hargeysa ayaa baaq nabadeed waxa uu diray beelaha walaalaha ee dirirtu ay ku dhex martay deegaano ka tirsan gobolka Sool waxaanu suldaanku ugu baaqay inay dagaalka joojiyaan isla markaasina ay u qabsoomaan ergooyinka nabadda ee deegaanadaasi gaadhay. maanta halkan inaan uga diro baaq nabadeed laba beelood oo walaala ah oo ku dagaalamay meesha la yiraahdo Dabardalool oo degmada Xudun 25 kiiloomitir dhinaca koonfureed ka xigta falilahi alxamdu labadii cishay u dambeeyay waxa ma dhicin laakiin dhimasho runtii iyo dhaawacba waa ay jireen oo arin laga tiiraanyeedo arin runtii laga aad iyo aad u fool xun buu ahaa shaydaan baa halkaas ka adeegay waxaan ugu baaqayaa bulshada halkaas degtay labada beelood ee Siyaad Maxamuud guud ahaan wariyaha Siyaad iyo Jaac Siyaadba inay nabadda iyo xasiloonida iyo wada dhalashada iyo walaalnimada iyo waxay soo ahaanshaha islaamnimada iyo ehelnimada ay nafarayaan iyo dhaqankeena suubaniya diinteenu wayna ka shaqeeyaan dhamaantoodba in wixii dhacay way dhaceen oo inoo soo noqon maayo maanta rag ka dhintay aan cid kale lagu darin ayaan ugu baaqayaa labada beeloodba waxa kale oo ugu baaqayaa in ay xariga dabciyaan oo ergooyinka halkaasi jooga ee dantooda halkaasi u tagay ee aan wax kale ka shaqeynayna islaax bayna naas labada ilaahay ummadda walaalaha ah ee ilaahay khilaafka iyo gacan ka hadalka uu dhexdooda shaydaanku sababtoo ah ka dhaliyay inay xaliyaan ummadda halka u tagtay ee madax dhaqameed leh ee culimaa u diin leh ee aqoonyahan leh ee ciidamo ammaan leh ee dhammaan qaybaha bulshada dhalinyaro leh ee haween leh cid walba leh ee qaybaha bulshada deegaankaasi iyo dadka la jaarka ee dhinacyada faraha badan leh uga yimi inay u dhaganugloodaan ergooyinkaasi ayaan runtii halkan aan baaq uga dirayaa oo aan ku waaninayaa oo aan ku dardaarayaa ergadu sideedaba ducana way leedahay daymana way leedahay bil Ramadaan baynu ku jiraa dhiiga qofka islaamka ah halka diinteenu ay ka gaadhay waa ognahay iskabada laba raas oo walaala ah oo ilaa ay suurta la afuufayo maalinta yawmal qiyaam ilaa ay adduunka guudkiisa laga guurayo halkaas wada degaanaynaysan waxa la war aqligu ha shaqeeyo walaalnimada iyo wanaagga iyo xusoo ahaanshaha ayaan laga tagin wixii dhacayba way dhaceen aanada taybada la qabay tirada Soomaalidu wada hadal hal loo diyaar garoobo ummadaasina hal loo dhaganuglaado waxa kale oo halkan runtii hambaliyo iyo bogaadin uga diraya madaxda dhaqanka ee arintaasi gacanta ku haysa ee uu ugu horeeyo Garaad Cabdisalaam oo arintan garwadeen ka ah runtii iyo Ugaas Maxamuud oo labaduba ilaa maalintii ilaa maanta ku sugan goobta iyo madaxda kale ee dhaqanka ee maalinta ka dambaysa ku soo biiraysa culimaa u diinka aqoonyahanka dhammaan qaybaha bulshada ee dadka beelahaasi u dhashay dadka kale ee jaarka ah mahad balaaran baan runtii halkan uga jeedinaya waxaan leeyahay jazaakumullahu alkhayra wanaag baa shaqaynaysaan xil ina wada saaraaba kaligiin qabateen oo fuliseen waxaan ilaahay idinka baryayaa in ilaahay miisaanka xasanaadka idinku daro labada beeloodbana waxaan ugu baaqayaa in xarigaasi la dabciyo oo aan laga tagin wada dhalashada iyo walaalnimada wax kasta way dhacaan laakiin in xalka arintaasi loo diyaar garoobo oo aan ergadaasi dhaga adeeg loola iman ee arinta xalkeedii loo diyaar garoobaan labada beeloodba ugu baaqayaa waxa kale oo ummadda ugu baaqayaa jiidaasi degtay guud ahaan ummadda Soomaaliyeed ba reer Soomaaliland iyo Soomaaliya oo dhanba in wixii baada iyo biya manfaca qisa qoro ummadda ku wada gaari kartaan ilaahay inoogu naxariisanaya taa in la wada manaafacadsado oo aan la kala sheegan taasina ummadda waa ku guubaabinaya بعض الصحافة فرنتي إذا قاعدة جالسين دون تنا وهم هذا والله هذه أدبنا نقول ما هذا قيا رنتي إذا ما قلب كسر قاب تأسيس تجي إلا بدأ بيلود كربت بعدي يحبدي دعيسي شو شيء أنت كلا وحجر اللي وهي اللي قوية اللي إن درجر اللي كقيب قاعدتين وان ويجنا وهم هذا وحكلا وحلا قلت هنا يودا إرجو ضد إرجاء oo socdo goobta in lagu waxyeeleeyo ama lagu dhaawacano waa nasiib darro oo waxaynan dhaqan u lahaan jirin taasina waxaan leeyahay war laga digtoonaado yani dib u dhicin in ergada wax la yeelo ergadu sideedaba waxa weeye islaax bayna naas ay halka dantoodu waxay u dhigeen waa danta ummadaasi ay dhex joogan marka birmageeday ummadda Soomaaliyeed lahaan jirtay wax hore u dhici jiray ma ahayn in ergada wax la yeelo taasina runtii aad aniga waxaan leeyahay haday hore u dhacday mar labaad ayaan dhicin Maxamed Cumar Daariq RTN Hargeysa كحرنو IBS Bank goob kasta iyo goor kasta adigoo isticmaalaya IBS Mobile Banking degso application-ka oo isticmaal adeega IBS Mobile Banking si aad u isticmaasho application-ka fadlan kala soo deg Google Play ama App Store-ka ku qoro IBS Mobile Banking
kadibna guji install si aad ula soo degto abka. haddaba ka isticmaal taleefankaaga adeegyada IBS Bank